iyadoo loo asteeyay 15 Abriil maalinta dhirbeerista qarankani Somaliland ayaa guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka Somaliland si weyn looga xusay maalinta dhirbeerista haddaba xuska dhiraynta ayaa ka qabsamay wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer waxaana ugu horeynba ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka iyagoona dhammaantood ba sheegay faa'iidada dhirtu leedahay waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan maanta waxa weeyaan waa 15 Abriil oo maalintii qaranku u asteeyay maalinta dhirbeerista qaranka dabadna madaxweynuhu waa ku dhawaaqay 10 bisha in laga dhigo 15 Abriil marka waxay diyaar garow iyo dhiraan haynay waan diyaar garownay gobol ahaan Togdheer ahaan marka waxa weeyaan ilaa 5 oo geed baan bixinaynaa insha Allah hadii wixii hore iyo wixii dambaba imka waxaan ugu talagalay inaan hay'adaha dawladda iyo dadweynaha wixii ay ka gaadho inaan ka furiyo wixii aan hayno dhirteena iyo dalkeena xaaladooda halka ay marayso wax la gooyay iyo wax dhuxul laga shiday baa dhirtii dalku ku dhamaatay marka waxaan kugu soo dhaweynaynaa inaad maanta maalintii dhirbeerista geedka ugu horeeyay inaad noogu beerto adoo ah gudoomiyaha gobolka Togdheer gobolka aad noogu beerto magaalada burco runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hadaan ciidamada nahay waliba ciidanka qaranka anagu dhirta waanu beernaa xariyaha iyaga oo dhow aad bay uga baxdaa waanu beernaa maanta maalintii sida gaar loo asteeyay waanu ka qayb qaadanaynaa imkana qaybteeda waanu qaadanaynaa maanta oo ah 15 Abriil 2018 waa maalintii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland uu asteeyay inay noqoto maalinta dhiraynta qaranka ay ugu talagaleen inay bixiyaan dhir gaadhaysa ilaa 5 oo geed dhirta waxa loo baahan yahay inaynu gobol ahaan ka faa'iideysano waxaan ugu horeysiinayaa xafiisyada dawladda madaxda xafiisyada dawladda waxaan jecelahay in halkan ka faro in xafiis walba dhirta laga beero si aynu tusaale ugu noqono mujtamaca gobolka Togdheer oo iyaguna maaragtay ay ugu dayadaan hadii xafiisyada dawladdu ay dhiraysan yihiin oo qurux badan yihiin magaalada iyo gobolka intiisa kalena waxa weeyaan waxay noqonaysaa tusaale fiican dadweynahana waxaan ka codsanayaa dhirta maanta la siinayo inay maaragtay ka faa'iideeyaan Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Soomaali Cable burco